Tan iyo markii madaxweynaha dalka Koonfur Afrika uu ku dhawaaqay in looga baahan yahay dukaamada cunnooyinka yaryarka ah spice shops-ka loo yaqaano registration muddo 21 maalmood ah, waxaa soo batay dadka ajaanibta ah ee xarumaha dowladda buux dhaafiyay, walow marmarka qaarna laga hor istaagayo, haddana aanan aqoonin qaabka loo marayo, isla markaana maxaan ku idhahdaa laga yaabo marmarka qaar inay dhaqaaluhu u kacdo sida ganacsatada South African-ka leeyihiin, maadaama dadka ajaanibta ah weligood aysan sharci register-gareysan. Balse dadka South African-ka ayaa iyagu waxay aaminsan yihiin in maxaan ku idhahdaa ay lacag ku kacayso arrintani, isla markaana waqti dheeraad ay u baahan tahay. Gebi ahaanba horta waxaa la isku raacay in waqti dheeraad ay u baahan tahay arrintan oo aysan sahlaneyn 21 maalin oo madaxweynaha uu iska yiri oo keliya. Balse sida la filayo 21-gaas maalin waqti dheeraad ayaa loogu dari doonaa dadkan oo macnaha dowladda xitaa nafsad ahaanteeda inaysan suuragal ahayn waa ogtahay, laakiin dadku meesha ay ka bilaabayaan iyo meesha loo diray inaysan islahayn ayaa loo badinayaa, khaasatan dadka